السلام عليكم كسو دو channel كيغا Modern Somali Food maanta waxaan la wadaagayaa quraacda aad u qurux badan chocolate waffles weeyaan maasha Allah tabaaraka raxmaan sidaad arkaysaan ay soo baxday dadkiina ehelkiina familkiina iyo qof kasta oo jeceshahay ayaad ku casuumi kartaa haddii aad channelkayga ku cusub tahay fadlan intaan videoga guda galin waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto haddii kalena asxaabtaada iyo ehelkaaga la sii share garee channelkayga waxyaabo badan oo ka anfaca ayaad ka faa'iidi doontaa cuntooyin si fudud loo sameeyay oo casri ah ayaan soo geliyaa haddii aan u guda galo maanta videogeena waxa aad u baahan tahay waxyaabahan soo socda ugu horreyn waxa aad u baahan tahay hal koob oo daqiiq ah sidoo kale koob barkii oo caano ah hadhow talo qoraalka dusha ayaan idinka soo qori doonaa insha Allah sidoo kale waxaad u baahan tahay baking powder xabad beeda ah ama ukun qofba sidoo u yaqaano cocoa powder waxa rabaa inaan midabkiisa chocolate ka dhigo marka cocoa powder ayaan isticmaalayaa hadii Ilaahay yiraahdo subag aan soo dhalaaliyay ama butter intaas ayuu ka kooban tahay cuntada aan maanta ama quraacda aan maanta sameeynaa imikana waxa aan sameynayaa waan isku wada dardarayaa la socod wanaagsan qofkii aan Soomaaliga fahmeyn ama qofkii aan Soomaaliga ina ahayn luqadiisa koobaad subtitle English ayaan dusha uga soo qoray si uu easy ugu noqoto inuu fahmo markasta waxa fiican marka aad ajiin sameynaysid inaad si fiican isku dhaxgalisid wax mashiin ah ma isticmaalaya maanta laakiin qacanteeda ayaan si fiican rabaa inaan ugu qaso si ingredient-ku isku wada dhaxgalo qoraalka dusha saad uga arkaysaanba ama san hore idinku sheegay imika waxaan isku dardarayaa kaliyaata waxyaabihii uu ka koobnaa waxaan rajaynayaa quraacdan inaad ka faa'iidi doontaan aad masha Allah maalmahaad fasaxa tihiin oo kale ama iskuulka aad ka fadhidaan aad samaysan kartaa waqti badanna ma qaadanayso aadna u qurux badan tahay muuqaalkeedu indhaha ayuu soo jiidanayaa mashiinka hadaad haysatana way ku fududahay hadii kalena waxa rajaynayaa inaad mashiinka lagu sameeyo waffle-ka aad soo iibsato waxyaabo badan oo kala duwan ayaad ku sameyn kartaa ama qaabab noocyo kala badan oo waffle-ka loo sameeyo insha Allah ayaan idin la wadaagi doonaa maanta waxaan la wadaagi waxa weeyaan chocolate waffles laakiin maanta kalena kii oo plain ah ma kii oo saafi ah ayaan insha Allah idin la wadaagi doonaa in yar ayuu iga noqday couscous sidaa daraadeed ayaan mashiinka inta yar ugu dambeysay isticmaalay haddii aanad mashiinka haysanin wax dhiba ma laha oo qacantaada umad si fiican ugu qasi kartaa cuntadeeni waa diyaar maasha Allah waan isku soo wada qasay sonkorta xagga ugu dambeysa ayaan kaga daray markii hore waxaan doonayay inaan eego mashiinkan aan imika waffle-ka u isticmaalayo in muddo ayaan haystay ilaa 2 sano imika waan haystay kulli mid ka weyn insha Allah waan soo qaadan doonaa mashiinka marka hore waa inaad shido leerka xagga sare waa inuu green ama casaan noqdo si aad u ogaato inuu diyaar yahay haddii kale isagoo qabow aad ku shubto uu ka xumaanaya waffle-kii kumana soo kacayo kumana bislaanayo markaad ku shubaysid waxaad ku shubaysaa in aana badnayn yarayna haddii aad ka farabadiso cajiinta aad ku shubaysa mashiinka hareeraha ayay ka daadanaysaa haddii kalena dhexda ayaa banbanaan samaysmaya markaa si qiyaasan oo adiga yacni aad u aragto inay macquul tahay ayuunbaad ku shubaysaa haddii Ilaahay yiraahdo sidaad arkaysaan ayay soo baxday maasha Allah tabaaraka raxmaan waa diyaar cuntadeeni imika waxaan bilaabayaa decoration-kii ama inaan sharaxaada dusha ka saaro anigu laba nooc oo kala duwan ayaan maanta isticmaalayaa waxaan isticmaalayaa raspberry iyo blueberry sidoo kale in yar oo chocolate sprinkles ama ayaan dusha kaga daadinaya iyo malab laakiin wixii adiga aqalkaaga ku yaala ama choice-ka fruitka aad jeceshahay ayaad ku sharaxan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo
ugu dambeyntii in yar oo malab ah ayaan dusha kaga daray. haddii aanad jeclayn macaanka fara badan waad ka yareyn kartaa. maasha Allah tabaaraka raxmaan quraacdeennii sidaas ayay soo baxday, aad ay u qurux badan tahay. iminka haddaad suuqa tagto ood kasoo cunto cuntadaas waxa laga yaabaa inaa yacni 15 gini 20 gini ama 20 pounds meelaha ay ku kosti garayso, laakiin gurigaaga ayaa lagugu barayaa si aad ugu samaysan lahayd, familkaagana aad ugu casuumi lahayd. waxaan rajeynayaa channelkaygan aad ku xidhnaato waxyaabo fara badan oo insha Allah qurux badan oo kusoo jiita oo si fudud loo sameeyey ayaan rabaa inaan idinla wadaago haddii ilaahay idhaahdo. ramadaantana waxyaabo badan oo yacni cajiiba ayaan idiin soo wadaa. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. إلهي أنت هيستنا أسيادي، أنت أن هيسنا إلهي أسي نوعا إن شاء الله مالت دم يعني دلوا ذاك دونا وان قاب كلو أو دوان ووافل كلو سمايو أو نسقط شكلات لهين كانوا كاني مكدين لوا ذاكي سيدو كلو حين تسدونا فيديو يدي هراء أن سوق لي channel كيجا سيدا هيلب كان هوريس كأ haddaad dib ugu noqotaan fiidiyoyadeeda ayaad ka arki kartaan insha Allah. fiidiyowgan oo kale aan idin la wadaaga sabaayada huuriska waa idinuna inoo soo socotaa. tan fiidiyowga ku xigay ku kulmi doono waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. aad ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya, naftaada adaa hogaansha, adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye. kun haybood noloshu weeye, kun hawlood baa ku xeeran, kun bay hakisaa dharaan.